سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وجميل سيدنا النبي وجميل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقيبتي لبعض تحانيه أن أقوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه رسولك إلهي سيدي آديقو أركيا. تحناها قيبتي كواد أين هروسو أرقني وكساب سنيد عدينا عديني أهمية إلى هاي النبي عليه الصلاة والسلام إن لقو ضيضو. وحين كلو كورني مقعيد النبي عليه الصلاة والسلام مقعيدي أولها حلقتنا متحناها لبعض وحين كورني دونا إن شاء الله تعالى رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسب كيسي يقولدي وكسو تشيدي وحين كلو كورني دونا ماشى النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء حلقي وكل شيء iyo waxa weeye cidii nuujisay rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Rasuulku nasab ahaan wuxuu ka soo jeedaa nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam oo inankiisa Ismaaciil dhurriyadiisa Ismaaciil nabi Ismaaciil oo ina Ibraahim ahaa halkaas ayaa dhurriyay nabigu alayhi salaatu wasalaam ka soo jeedaa. nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka mid ahaa ama ka dhashay carabta oo laba nooc ahayd. cidda carab la odhanaya waa laba nooc. carab ka soo jeeda qaxtaan ibnu yacrub ka soo jeeda iyo carab ka soo jeeda cadnaan. labadaa qolo ayaa carab la yidhaahdaa. marka nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wassalaam carabta cadnaan qoladaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dhashay. ilaa cadnaan nabigu calayhi salaatu wasalaam nasabkiisa iyo odayaasha u dhaxeeya wax khilaafa kama taagnaa culamada dhexdooda. laakiin wixii ka dambeeya ilaa nebi aadam laga gaadhayo yacni layskuma waafaqsana xagga odayaasha inta u dhexaysa iyo magacyadooda. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa Muxamed sidaynu sheegnay magaciisa hore usay u sheegnay oo ina cabdillaahi ahaa cabdullah ibnu cabdilmuطalib. cabdullaahi oo ahaa ina cabdulmuطalib odayga cabdulmuطalib ee nabiga awowgii calayhi salaatu wasalaam magaciisa waxaa la yidhahdaa shaybah. cabdulmuطalib markaa waxa weye addoonkii muطalib buu noqonayaa haddii la fasiro. addoonkii muطalib waxaa loogu magacaabay haashim oo awowga labaad ah nebiga calayhi salaatu wasalaam. haashim oo awowga labaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa safar ugu baxay wadanka shaam la yidhaahdo. kadibna madiine oo markaa yathrib la odhan jiray markii uu marayey ayuu gabadh la sheekaystay. gabadh la odhan jiray salma binti camr. gabadhaas ayay ku heshiiyeen guur. halkiibuu markii uu safarkiisii soo dhammaystay uu soo noqday ayuu la aqalgalay oo loo dhisay. halkaasuu ku guursaday. kadibna wuu kaxaystay oo makuu keenay. markii ay uur yeelatay uurka ay yeelatayna uu yahay shaybah oo loo yaqaano caan ku noqday markii dambe cabdulmuطalib ayaa waxa weeyaan ay uurkeeda lahayd oo ay soo dhowaatay xilligii ay umuli lahayd ayuu ku celiyey waxa weeye magaaladeedii madiina oo waqtigaa yathrib loo yaqaanay. kadib safarkiisii buu sii watay. safarkaa kama soo noqon wadanka falastiin gaar ahaan magaalada ghaza ayuu ku dhintay haashim oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgiisii labaada. ilmihii yaraaye uu dhalay shayba
wuxuu ku barbaaray reer abtigii oo madiina dega bani najaar niman la odhan jiray ayuu waxa weeyaan ku dhex barbaaray. kadibna waqti ka bacdi ayaa nin safari uu madiina yimid. markii uu madiina yimid ayuu wuxuu arkay ciyaal dhalinyaro ah wada ciyaaraya. ciyaalkaas oo ka mid yahay nin aad iyo aad u qurux badan. ninkaasoo marka uu ciyaarta isagu helo odhanayay ana ibnu haashim ana ibnu sayid alabtax, waxaan ahay waxa weye ina haashim, waxaan ahay abtax oo qurayshuga uga jeedo maka meel ka mida sayidkeeda iyo kii la adeecayay kii uu dhalay baan ahay. kadibna wuu u yimid oo wuxuu ku yihi kumaa tahay? wuxuu u sheegay in la yidhaahdo shaybah ibnu haashim ibnu cabdimanaaf. kadib wuu noqday. nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgii oo ay walaala yihiin haashim ay walaala yihiin oo la odhan jiray muطalib ibn cabdimanaaf ayuu u sheegay oo yihi inan yaroo aada dhasheen baan ku soo arkay madiina. kadib muطalib uu soo baxay, ilmihii ayuu doonay, madiinuu yimid, uu soo kaxaystay. waa inankii walaalkii dhalay nebigana calayhi salaatu wasalaam awowgii ah. kadibna markii uu maka keenay ayaa la arkay isagoo waxa weeye ilmo yar ina yaroo dhalinyaro ah wata. kadibna waxaa la yidhi haada cabdulmuطalib. waxay moodeen addoon uu muطalib leeyahay, markaase waxay yidhahdeen waa addoonkii muطalib. sidaasaa magacani cabdulmuطalibka ku raacay, laakiin magaciisa caadigaah wuxuu ahaa shaybat alxamdina waa la odhan jiray. idan waxay leeyihin rasuulka sala allahu alay wasalam magaciisa waa moxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmuطalib. cabdulmuطalib oo magaciisu shaybe yahay, ibni haashim. haashim oo magaciisu yahay camr ibni cabdimanaaf. cabdimanaaf oo magaciisu yahay almugiira ibnu qusay. cabdimanaafkaasoo qusay dhalay oo inuu qusay ah. qusayna magaciisa yaziid baa la odhan jiray. qusay waxaa loogu bixiyey baa la yidhi bimacnaa baciid weeye, liannahu bacuda can cashiiratihi. wuxuu ku dhex koray ama ka fogaaday qoladiisii iyo reerkii uu ka dhashay meel aan ahayn buu ku barbaaray, ama waxa weeyaan u durkay oo la degay. sidaa daraaddeed baa qusay loogu magacaabay. magaciisa laakiin waxaa la yidhaahdaa zayd baa la yidhaahdaa. qusay markaa oo ina kilaab ah, kilaab oo ina muro ah, muro oo ina kacab ah. marka kacab waxaa loogu magacaabay wuxuu ahaa nin wanaagga u dheereeya oo weliba u sabra. oo waxaa laga keenay bay yidhaahdeen min kacbi ilqadam, cidhibtaa laga keenay oo kacabka cidhibtaa la yidhaahdaa. waxaana loogu magacaabay kacab loogu magacaabay wuxuu ahaa mid ku dadaala wanaagga ku dadaala oo u sabra. sida waxa weeye qofku cidhibtiisa marka uu taagan yahay uu u cuskado, dadaalkii uu wanaagga ku dadaalayay daraaddii ayaa kacab loogu bixiyey. waxaanu ahaa ninkii u sameeyey maalinta jimcaha oo berigaa hore loo yaqaanay caruuba loo yaqaanay. caruubadaas oo ahayd maalin maalmaha ka mida oo maalinta markii dambe markii islaamku yimid loo bixiyey jumco loo bixiyey yowm اljumca. wuxuu ahaa mid quraysh jamciya oo waxa weeyaan u khudbadeeya oo wanaagga fara oo waxyaabaha wanaagsan u sheega. marka kacab oo ina lu'ay ah, lu'ay oo ina haalib ah, haalib oo ina fihri ah. fihrigaasi marka waa quraysh ninka loo yaqaano. culimmaduna waxay isku hayaan magaciisu ma quraysh buu ahaa, fihirna wuxuu ahaa naanays, mise magaciisa fihr ahaa naanaystiisuna quraysh bay ahayd. waxaa xoog badan in qurayshtu uu naanays ahaa magaciisuna fihr ahaa. marka waa fihirkaasina waa ina maalik bin nadar. nadarka marka nadarku wuxuu iska naanaysa magaciisa qays baa la odhan jiray. qays ibnu kinaana ahaa. kinaanahaasoo ina khusayme ahaa. khusayme oo ina mudraka ahaa. mudrakadaasna ama mudrika ninkaa la odhan jiray waa naanaysa magaciisu caamir buu ahaa. ibnu ilyaas ahaa. ibnu mudar ahaa. ibnu nazaar ahaa. ibnu macadin ahaa. ibnu cadnaan ahaa. marka intaas waa inta ay culammadu ay isku waafaqsan yihiin in nasabku uu sidaa ahaa. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cadnaani, waa carabta qeybta loo yaqaano carabu cadnaan. carabu cadnaan qeybta loo yaqaano weeye.
waana kii ninkii gabiye carbeed uu lahaa wakam abin qad calaa bibnihi dura sharafan kamaa calaa birasuuli illaahi cadnaanu alla fara badana aabba inankiisa ku kor noqday oo sharaf ku yeeshay oo magiciisii lagu sheegay sida cadnaanba uu ugu kor noqday rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam daraaddii ayaa cadnaan loo sheegaa magaciisoo loo soo celceliyaa marka nasabkiisu nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuu galaa waa qurayshi waana waxa weeyaan cadnaan buu ka yahay idan nabiga calayhi salaatu wasalaam reer ahaan uu ka soo jeedo iyo nasabkiisu waa ashrafu alansaab waa nasab la sheegto nasabka ugu qiimaha badan rasuulkuna wuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha astafaa kinaana min waladi ismaaciil nebi ismaaciil ubadkii uu dhalay kinaana ilaahay ka doortay waa ka nebigu gala calayhi salaatu wasalaam wastafaa qurayshan min kinaana kinaanana awlaad badan buu dhalay waxa alle ka sii doortay quraysh oo odaygaynu nihi fihri baa la yahdaa weeye wastafaa min qurayshin bani haashim qurayshna waxa alle ka sii dhex doortay banu haashim waa raaska iyo jifida nebigu yahay weye calayhi salaatu wasalaam wastafaanii anigana waa i doortay baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alle min bani haashim reer haashim iyo ubadkii haashim dhalayna aniga alle subxaanahu watacaala iga sii doortay idan nebigu calayhi salaatu wasalaam nasabkiisu waa nasab aad iyo aad u qiimo badan haddaynu magaca nasabka aynu tirinay aynu magacyo kala dhex gelgelinay aynu si toosoo xidhiidha u akhrina wuxuu noqonayaa moxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmuطalib ibn haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibni kilaab ibni murah ibni kacb ibni lu'ay ibni khaalib ibni fihr ibni malik ibni nadar ibni kinaanah ibni khusaymah ibni mudrika ibni ilyaas ibni mudar ibni nazaar ibni macadin ibni cadnaan sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam idan nasabkaas qiimaha badan ayaa rasuulku lahaa sala allahu calayhi wacala alihi wasalam xaggaasi waa xaggii aabbaha xagga hooyada haddaynu eegno nasabkiisu isaguna waa nasab aad iyo aad u qiimo badan oo waxaa dhashay aamina bintu wahb ibni cabdimanaaf ibni zuhra ibnu kilaab reerkaas ayay iyaduna ay ka dhalatay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam odayga kilaab la yidhaahdo ee ahaa qusay aabbihii qusay ibnu kilaab kilaabkaas ayay ku kulmaan oo ay isugu yimaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam marka hooyadii waxay ahayd xilliga ay noolayd hablaha quraysheed inanta ugu sharafta badan uguna qiimaha badan aabaheedna wuxuu ahaa nin la ixtiraamo oo sayidka ah qoladiisa zuhra reer bani zuhra wuxuu ahaa waxa weye nin la adeeco oo aad iyo aad loo dhegeysto marka nebigu calayhi salaatu wasalaam aabbihii oo cabdullaah ibni cabdilmuطalib ah ayaa wuxuu guursaday inanta aamine la yidhaahdo oo ka mid ahayd hablaha aadka iyo aadka ugu sharafta badan kadibna waxay u dhashay nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam culimmadu waxay isweydiiyaan oo khilaaf ka taagan yahay hooyadii goormay dhimatay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida raajixa kuma garaadsan culimmada qaar leh wuxuu dhintay nebigu hooyadii dhimatay isagoo waxa weye dhowr bilood jira qaar leh dhowr sannadood buu jiray calaa kulli xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma garaadsan cid kale oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la walaal ahina ma jirto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam hooyadii iyo aabbihii cid kale may dhalin oo aabbihiina wuxuu dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo caloosha hooyadii ku jira hooyadiina waxay dhimatay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo yar cid kale oo nebigu la walaal yahay xagga waxa weye nasabka ma jiro laakiin sidaynu tilmaami doonno nebigu wuxuu lahaa walaalo xagga nuujinta oo waxaa jiray inan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inan la walaal ahaa xagga nuujinta oo naas ay wada nuugeen sida aynu insha allahu tacaala kulanka ama taxanaha saddexaad aynu ku tilmaami doonno halkaa laakiin waxaa inoogu joogaya insha allahu tacaala kulankii labaad taxanihii aynu ugu magac daray rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kaannaka taraah rasuulkii ilaahay sidii adigoo arkaya wallahu tacaala aclam wsala allahu wasalama wbaarak calaa cabdihi warasuulihi moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin